بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا هبون داود يلإذ لهانتين با meel kastoo muuqaygu codka wadin ka soo gaarayo ku soo dhawaada wixii war naga soo gaaray geeyga Soomaalidu doctor iyo guud ahaan dunida inteeda kale halka aad wararka si toos ah kala socotaan waa xarunta guud ee telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland warka waxaad la socodsiinayay hadii ay Barraxmaan Kiraali ka ahaado anigoo ah Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame qodobada daawadayaal warkayga ku daawan doontaan kuwa waaweyn waxa kamid ah xukuumadda Somaliland oo sheegtay inay dib u soo celin doonto arday ay dhawaan u dirtay dalka Itoobiya hadii ay sii xoogeystaan dagaalka ka socda dalkaasi madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo daafuray wajigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland oo ka deeriyay xaalad abaareed oo uu sheegay inay soo food saartay Somaliland ciidamada dawladda Itoobiya oo sheegay inay la wareegeen magaalooyin muhiim ah gobolka Tigray ee dalkaasi daawadayaashadan jecelnahay kuwaasi waxay qaar kamid ah qodobada waaweyn warkayga habeenimo imikii haatan isku diyaariyo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan